salaan mudano macaano markaaba adag maskaxda laga keenay iyo manka iyo qalbiga abwaan miisaamayo meel walbaba ka rogay mira dhalkii reer Puntland oo aan muran lahayn waxaanu ku macsuunay madaxdeena maanta timi waxaanu ku macsuunay madaxdeena maanta timi madalla joogaba raggaas magacu saaran yahay raggaan laga maarmin oo mata ururiska ee mudan oo madaxweyne midigtaada nagaga qabo maasha Allah salaanti waygataa quraanburkii maalintan abaarta iyo oonka iyo rafaadka aanu Puntland ku dhisaynay aan tiriyay oo Ilaahay iga aqbalay baan usagana idin maartay maanta idin maqasheenaya dadku hal abuurka waxay u qaataan waxaan jirin iyo waxaan macno lahayn maasha Allah hal abuurku waa khatar weey oo qofku hadduu hal abuur yaqaan hal khatar weey quraanburkan baa ku ogaanaysan لا تصل كور مركي هذا أستاذ نسي بنتلان إنه الصومالي سكينيسه الصومالي سكينته وحان إري بدلان يا ركتي ذا عندها أورون بدلان يا ركتي ذا عندها أورون أدون وينه الدربو يدين حيا أساسكي دولة نمو إنا دفتي مسين ودوب دحات كادو تاكتين كما البغين أفكارتي هذا الكوهاد كي أستورن دتكي مغنيا wax laga sheeg afkaartii hada الكوهاد كي أستورن adeegiyo shaqadu haato ad adag irdii Soomaaliyeed haysu soo ordeen ninkii ood fogiha soo raaco ololka dheer agtiina imanaya nine oogu shida sidii oon dheerihii gela oo hodhaha agtiina imanaya nine oogu shida asaaska u jeexa aqalkii anfici lahaa ilaahay dankii arrinteena la isku raac dhammaana aaminta in ilaahinoo aqbalo wartan maanta joogta ma tahay mise maaha waa u muuqaaleeg tahay agtiina imaanayaan oogta u shida aqal asaaska u jeex intee dabaq dhisteen maasha Allah lagama sheekeyn karo maama Xalimo Puntland ayaanu saaka gurigeeda ku soo booqanay magaalada Garowe ku yaala maamadu waxay ka mid tahay dadkii u soo halgamay maamulka 20 sano jirsaday balse iminka dad badan baa la dayacay marka Puntland laga hadlayo gudaheeda Soomaali weynna laga soo tago oo aan sida ay ugu liseen aan loogu hambayn sidaas ma muuqaaleegtahay maamo waxa ila tahay hadalkaan oran lahaa walaalkay baa ii yiri haye waxa jira oo iyaduna xusid mudo horta anigu qofkii aan arko oo wax loo qaadan karo muujiya intaan aqlisaday horta taariikh baan ka qoraa taariikhii dhaqdhaqaaqa kontonkii baan hayaa Soomaad garan kontonkii ha xornimada Soomaaliya markii la bilaabayo loo halgamayay Soomaad garan intii ka dambeysana wixii aan arko oo suuragal ah ninkii sameeya taariikhda waan ku daraa واقف سومات قرن واحد ما يندوي قلنا أطرنا يا مدحونها مركي لدورته واجي هل كان لسعر سنة ومشارحين تبضان أي أردسي قلنا دي ساكن منو هيسا قلنا دي يو كان ما أنت شوقا اسمه قاعد كرا ميد ولا برنامج كيسولية قلنا دي هدي الله إدمه سيف عمنا ودي يارجع سيف عنها هو بسلاته مدحوني وعسبيه وليدك ما قصلين صورنا شروط بانكو حري markii dadku maaragtay iyo dalku maaragtay madaxweyne u soo banbaxo gunad horta waa haya barnaamijku waa haya oo waa tiri markii ma bislaadaan laakiin ha bislaadaan leeyahay Soomaad garan waa haya isagoo cusbaysan oo xawaajisan oo qosol yamaada Soomaad garan laakiin kan maanta ah badii heshiisinta Soomaaliya waa ashqaalahan waftiga yimi waa Puntland hadii Allah idmahay barnaamijyadeeda kan maanta ah ma garat marka اللهم استعان وحن كليه هاي هذا وحن يدين بلابا يا بيد ير أو كنتكي حلقة كنتكي مايا كنتكي معها سوق كلا دمية سوق حاجة سوق حجنية أو قنادم يا مايا قنادنا معها كنتكينا معها أدونك ويش كبدي لها هي وحن يري ديارة كجوحة يدوني ذيلا ديارة كجوحة يدوني ذيلا دوشنا مرا يا جندنا أقون ذهب كجورانا يا دنيا وحن لهين ذهب كجورانا يا دنيا وحن لهين
dahabka guranaya iyo dunya waxaan lahayn raggaas diidayaho dowladnimo la yimi ilaa dowladihii hore waxaad ahayd ma arki jirin وهو الصومالي سعودي وهو الصومالي سعودي هي محابسته رقاص دونا يهو دولة نماليمي رقاص دونا يهو دولة نماليمي الله دايم دول بيلا سميه وفرماتشي خيفه فرماتشي هي دولة دينا ودولة دينا دولة دينا مع حلبانه مع ددويني هي أنا قلت دولة صومالية وأي دولة صومالية هي الله هدايه مدول بيلا سميهين الله هدايه مدول بيلا سميهين نمان كديدا يهو دولة نمان ليمي الله هدايه مدول بيلا سميهين إذن كيو دولة دينو بديار قرو والله دلوانا جوان دبايلهين ندعين ما شاء الله كاسوا كهرت هي رقي باهري هي ديري عيادي رقه رجب من لقى قبي هرت marka hore may waxa rajada laga qabin maaha diriciyadii laga samrayo dayr walba qubna diriciyadii laga samrayo dayr walba qubna duga gucunaya iyagoo aan damin lahayn mindida daabkeeda loo haystay duhur walbaba hablihii la dumaalayo wiilal kale daydeen nimanka doonaya hoo dayr walbaba u koray ragii daldalaada loo haystay soo dallacay oo waa kuwaan daadahaynaya duhur walbaba ee alla hadaaye maduul bay la siman yihiin alla hadaaye maduul bay la siman yihiin farmaajiyo khayre rabbiyo hanaga furfurin farmaajiyo khayre rabbiyo hanaga furfurin farxadda Soomaaliyeed waa ku filan yihiin farxadda Soomaaliyeed oo ku filayeen farmaajiga khayre hey horta taas halkaas ku xiray maxaa yeelay ragii aad ogtihiin oo ba farxad oo dhammi ku dhanta horta taas halkaas ku xiray waxa ii haray dibashinta Soomaaliya haye Soomaaliya haddii dagaal dhacay oo amuura dhaceen oo la kala qaxay oo belo dhacday fakir baa igu dhashay aniga anu garow waan ku dhashay reer garow waanahay waliba reer baadiyaan ahaa waagi hore oo dhan fakir baa igu dhashay fakirka igu dhashay wuxuu ahaa dawladii hore baan garanayaa hilow dawladeed baa igu dhacay hilow dawladeed hadduu igu dhacay hilow nabdeed baa igu dhacay hilow Soomaaliyeed baa igu dhacay keligay anoo ah hantina aan haysan garabna aan haysan baan waxaan bilaabay buraanbur ducaa iyo Soomaali isu keenkeed hay waa xilli hore waa dagaalkii weey burburkii Soomaali wargalaal isku leeynaay waa leesleenaay hay gabdhaan leh waxaan idinaa aynu buraanbur oo dadku haystaayo niraahno wax leeyna naga tag habar yahay waali hore naga tag waa ka tagi haddaan ka tagay buraanbur baan tirigi xilligaas dhinaca cadifada ma raacin ma raacin Soomaaliba alla u bariyay ilaahayna waa iga aqbalay buraanburada alla ugu bariyana idin ma soo koobi karo laakiin waxba idin ka bilaabaya si fiican marka buraanburada dacayada la duubi jirayo ma jirin qalab kan aynu maanta ku shaqaynayna ajilkuna laba guri ma dhaafi jirin ama ajilka goortu qof xaasidii arko waa guri jiri ajilka aan Soomaali u duubo marka buraanburaan tiriyo keligay anigoo ah oo aan garab haysan waan cid haysan waan hantila haysan baan buraanbur waxaan isu qaaday waxaan isiri soo ilaahay ilaah maaha dawladda oo quruxda badnayd oo qaranka ahayd oo isjeclay soo ilaahay idin ma siin maantana ilaahay ka samreena xaliima ilaahay bar waxaan iri gababayay gaadahaygi barbayga goy gababayo gaadahaygi barbayga goy hayoy gabagabada Soomaali balan guntado garaada u qaato hawshan ka geli lahaa go'aamadan ku soo saaro gocashada raga low golahaan ka sheegayo yow gudeeya haddii aan gab sameeyo dambi dhaafa lay gale haddaan radan wad baan doonaya in la xiro la dilo baan ka baqaya halkaasaan horta ka bilaabay dhammaan Soomaalidii waa dhawaaqaya dhammaan Soomaalidii waa dhawaaqaya dhanay joogaan bahambalyaanu dhiibaya ilaahow dhagaxa naga qadexdoodaya
ilaahow dhagaxa naga qadexdooda yaal qarankii soomaaliyeed oo qarniga ahaa quruxda weynaayo qaymaha ku taaganaa qaafilkama noqone qalbigayga waa ku yaal ilaahow wow qarwaayaaye wax ila qabo ilaahow qowlka iyo ficilka laysku qoray ilaahow qadir baa tahaye haygu qadiid dhalasha soomaaliyeed baanu dhimanayaa dhalasha soomaaliyeed baanu dhimanayaa oo dhuuxa iyo dhiigo way wada dhalaalayaan dhibkii ina gaaray baan dhef la jerinayaa oo dhaawaceennii dhacaan dhayma marinayaa dhallaamada dhalanayaan dhaxal u doonayaa ee ilaahow waxaanu dhowrayno goor dhaqsale ilaahow daharka noo taag dad wada harsado ilaahow calanka doogale dusheenna keen ilaahow darisku wada maalo dahab irmaan ilaahow doobi culan cana lagu dalbado ilaahow nabadi waa doore lagu degriyo ilaahow lagu damaashado dooxa wacan ilaahow qalinka lagu duugo ducadayada ilaahow malagan daalayni noogu dalab oo ilaahow dunida gaarsii dadkii heshii warxawo iyo aadan xaygoodii baynu nahay warxawo iyo aadan xaygoodii baynu nahay xigaal iyo xididba dad xiriiray baynu nahay xudumaheena isku yaalo xaqba iska jira xumaantuma fiicna oo xaasidkaa kuluma ee xoola wada daaqa iyo xaasas wada harsada ilaahow xaakim baa tahaye nagu xoree halkaa goortaan marinayay waxay ila gashay misna inan bal qabiil isugu yeero warduudkii nebi aadan dadka soo duxaynu nahay duudkii nebi aadan dadka soo duxaynu nahay diriyo daaro duriyadoodii baynu nahay dariiqadii iriir duryaadkeedii baynu nahay haddii run la doodo dan wadaagdha baynu nahay dunidii soo tiilay daris raagay baynu nahay nimuu shaydaan duleeya dabkeenna shiday ee maanta waa dib u heshiisiinayaan la durin ninkii diidaya dayradag ha lagu xirxiro dagaalku waa hooge soomaaliyey heshiiyo habar wadaagay hashaada maal oo maanta ka heshiiya heerka aynu taaganahay magaca soomaaliyeedoo midaysanow oo meel la joogaba raggaas maamulada hayow intii rabbi mahadiso maxamed raacsanay limigan maxamed intii rabbi mahadiso maxamed raacsanoy muxuu badii nebigu nimay meel ka taabatow maraakiibba badweynteena lagu mirtaa macdanta iyo dahabka iyo maalka lagu gurtaa malaa'igeenna magaalooyin laga gataa maya ma oran karo raggeeniyo waa madluun alla waxaad milixsateen baa masuuba dhalay mala awaalkeeni baa mooshinina ku furay sidiyad moodeenba maaho waxbaa maldahan maqaadiir weeye waxa maanta ina hayaa ee maanta maareeya waddankeena muranka galay war maanta maareeya waddankeena muranka galay magaca soomaaliyeedoo midaysanow oo meel la joogaba raggaas maamulada hayow mayaygu kama horo waddankiyan madax lahayn dhirtiisu ma magoosho waddankiyan madax lahayn murwadu kuma taranto waddankiyan madax lahayn maqashu macayaadho waddankiyan madax lahayn musbaaxi uma daara waddankiyan madax lahayn meelna kuma fiicna waddankiyan madax lahayn cadowguma mooga waddankiyan madax lahayn ee magaca soomaaliyeedoo midaysanow magaca soomaaliyeedoo midaysanow oo meel la joogaba raggaas maamulada hayow war maanta mareeya waddankeena muranka galay warkii wax tabanaya iyo kii wax toosin kara warkii wax tabanaya iyo kii wax toosin kara isu tanaasula oo taladeenna meel ku fura
tollaayey aragnay taariikhdii ay lahayd inayna kala tuudho maahe wax nooma tarin eeyaan la kala tegine taladeenna meel ku furaa Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato maama Xalimo Puntland ayay ahayd oo aanu saaka ku booqanay hoyga ay ka degan tahay magaalada Garowe waa tahay daawadayaal maamada ayaa 2 sano ee la soo dhaafay halkan aan gurigaba irida kadinka ka bixin sabab la xiriira jabniin la soo darsay ama kula soo gudboonaaday munaasabadii 2016kii loo qabtay sanad guuradii ama loogu dabaaldegay maamulka Puntland dhalashadiisii tii 18aad bay had Soomahan markaa hadda waa 20 sano jirsada maamulku xilligii jabniinku kula soo gudboonaanay maamada ayaa jabniin waxa ka soo gaaray lug ayaa jabniin ka soo gaaray sida darteed 2 sano iyo googo ay halkan ku jaban tahay ma jirto cid war iyo wacal u haysa nolosheeda waxayna kamid ahay dadkii wax ka soo asaastay maamulkan 20 sano jirsaday ama qaan gaaray ee u dhisan Puntland maamadu waxay kamid tahay dadka Soomaalinimada ku adag isla markaana ilaa ay hadda quudaraynaya in Soomaali isu soo noqoto oo ay dib cagaheed isugu taagto sida maamam haye sida weey aad buu mahadsantahay